munaasabad lagu shaaciyay daahfurka xafiiska xisbiga horumar iyo midnimo qaran ee degmada Xudur lagu qabtay waxaa ka qayb galay taageerayaasha iyo wakiilada xisbiga, odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhalinyarada, haweenka iyo mas'uuliyiin kale ee munaasabada daahfurka lagu casuumay. kulanka oo si heer sare loo soo agaasimay ka qaybgalayaashana ay muujiyeen dareenkooda ku aadan in dalka uu aado doorasho qof iyo cod iyada oo loo marayo nidaamka xisbiyada ku dhisan. ugu horeyn daahfurka munaasabada waxaa ka hadlay wakiilka xisbiga horumar iyo midnimo qaran ee degmada Xudur Cali Cabdiraxmaan Karyare oo sheegay inay soo dhaweynayaan bulshada si ay uga biiraan xisbiga codkoodana ay u siiyaan. xisbigaas oo lagu furi markoo dhataade Xudurkooy xisbiyalka kooy kumadahay yageek Ilaahay wali inuu suurta galiyay intii uu qaban xafladiisa furitaanka Ilaahay ma hadii shukri leh oo intaan waafajiyay intuu xafladda iska kooyn xafladda uu furaan wali waayay xisbiga la eray midnimo iyo horumar oo hogaamiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo degmada Xudur lagu furi xisbiyada lagu furi ilaa kullimad ay dad shay taageerayaasha eedan badanyiin xisbida shay dad ma aqoon heer dhabeedan hayna maslaxa jeel xukuumnimo jeel inta la xukumo jeel yaa inta kooyti xisbigaas wali daafurceena dadka inta isoo dhamaatay salaame wali in sheegay in xisbiga la eraw horumar iyo midnimo qaran NBU oo hogaamiyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. qaybaha kala duwan ee bulshada daahfurka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay in xisbiga horumar iyo midnimo qaran xafiiskiisa gudaha magaalada Xudur laga furo. may baantaa ku dhawaayana madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan oo madaxweyne koonfur galbeed horaanqaday xisbiga iyo fadhiina may ku rajeeyay oo Ilaahay ku toogana xisbiga inta fadhi inta madaxweynaha koonfur galbeed sanada xisbiyal badan la jaray sanadkan wali la reeyay wali ku gudubay doorashadii oo wali ku gudubay dad banaaytay mugdiga haytay oo ka hor iyo wala rajaray magayo badan la haytay oo dadka wali baa dhalinyarada iyo wal gorodka dad badan isku faa'iideysado waayeen isbaarada iyo ka salaysanaaytay wali baa mugdiga yalla ku gudubay wali lin gudubay oo fi odalad marka xisbiga daahfurjay raali kaana waana meel loo raali galiba ma xisbiga digil marflow ma inshayna madaxweynaha federaalka tisku asaane waan inshayna hadii la walba la joogna lan ka salan garaba daashee may buu ka shabo koro aan ka shab ya taasna sheegan marka uu nafladaas geeyay ku yiraahdo qeybgal madaxweynahaas oo Shariif Xasan Sheekh Aadan horeen hadhooyaan musharaxiinta ka dhooyaan may buu asidiirinaanta usmay buu hanis saray oo mudtiis may buu oo aan warsurin eelan ka dhooyaan haddii reer boqoran eelan dhooyaan lan kasta oo reer boqore way ba ku cusdaane in lan ka muwaadinka reer koonfur galbeed oo Ilaahay marjay ka soo iskiriyay in garab saanka yaa ka dhooyaan insha Allah. daahfurka xafiiska urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ay ka socotay qaadashada kaararka codbixinta iyo isdiiwaangelinta taasoo bulshada ay ugu diyaar garoobayaan inay codkooda dhiibtaan. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, magaalada Xudur.